geerida ilaahay baa qoray waqtigayga dhaafi maayo waxaan idin sheegayaa waxa ka badan geerida uu geystay waxa ka badan 10 jeer waxa ka badan dhibaatada aan xal loo hayn oo kaga tagayo qofka markuu dilaya waa mar waxbad aanu kaga tagin laakiin qaar badan oo ka badbaaday ayaa sababadii wada fadhiyaan ayaa maartay wadnihii dhaawacmay ayaa kaliye dhaawacmeen ayaa maskaxdii dhaawacantay marka qofku wuxuu la noolaanayaa xanuun culus oo waliga la nooleeyay yaan la idin ka dhaadhicin geeri kaliya arintu ma geeri ma aha waxa la filayaa dhibaatada uu ka tagay dadka uu ka tagi doono ee liita ee uu kaga tagay dhibaatadaas daweyntoodu kharashkeedu inaan dawladaha waaweyn xataa bixin kari doonin muddo dheer walaalo marka qof walbo ee maanta jooga anigaasna aan ahaade geeriha ku talagalo haddaanu dhimana dhaawaxa ku talagalo haddaanu dhaawacmina ha ku talagalo qof uu jecel yahay qaraaradiisa geeridiisa iyo magaciisa ku talagalo maxaa marka lagu kala guuleysan karaa dagaalka adag waa dagaalka dawladaha China u dhow ay galeen ee ah inta aanu dadka layn ee u soo shaabixin inaan geeysano waxa laala wixii awood aan leenahay waxa weeye haduuna soo galo xanuunkana soo galo bal waxay qiyaastaan ma sariiraan u haynaa ma dhaqaatiir baan u haynaa ma kalkaaliyaal baan u haynaa ma dawaan u haynaa ma mishiinada neefta guro kiiba qaali yahay baan u haynaa intaba aan idin xaqiijinaya oo ka shaqeynaya midna uma hayno haddaba qofka xanuunsada xagee buu qabanaya marka waxa weeye intaanan dhibaatada meesha ugu dambaysa la gaarin maxaan qaban karnaa wayna gaarnaa haddaba jaadku muxuu ka yahay waxyaalaha aan ka hadli doono jaadku anuu maanta ka hadli maayo caafimaadka guud waxa uu la leeyahay ee hore ula lahaa anuu waxaan ka hadlayaa waxa weeye covid-19 muxuu qayb ka qaadan karaa jaadkan waxa weeye cunto aan daboolayn aan bac lagu soo xirin aan warshad ka soo bixin aan la soo mayrin aan la soo daweyn oo iyadoo nadiif qofkii bacdi uu ka furanayo ee waxa weeye waxa lagu dad baa gacan ku soo habeeyay gaari baa la soo cararay dad kala taabtay meesha ugu dambaysa aan ka soo qabano ee lagu iibinayo kolayga la yiraahdo maalin qof baa soo maraya uu iska eegaya uu naqayshanaya gacantu ku taabanaya uu ka tagaya adaa yimid adaa qaatay kii la naqaystay kii hore ee taabtana covid-19 buu qabay xanuunkan buu qabay coronavirus ku keenay waad la baxday gurigaagii baad la tagtay caruurtaadii yaa ku damanad qaadaya xaaskaaga jecelaad yaa ku damanad qaadanaya walaalaha iyo qaraabadaadii alla dhex fariisatay yaa ku damanad qaadaya waxa weeyaan ibtilo aad ku fidinaysid qoyskaagii dadkaagii saaxiibadaba la fariisateen mafrish baa fariisatay yaa ku damanad qaadaya mid idinka midi inaanu dushiisa saarnayn xanuunka aan la soo taaban waxa maanta la xaqiijiyay taabashadu inay tahay waxa ugu weyn ugu fara badan ee xanuunka lagu kala qaado waayo inta hindhisa isku taabanaysa waxa ka badan inta albaab taabanaysa inta gaari taabanaysa inta socod wax ku taabanaysa taabashadu marka waxa la isku raacay inay tahay sidaha xanuunka ee ugu badan mid baa yiri war iska meyrina walaalo waxaan ku sheegayaa gacmaha biyaha markii lagu meero sida ku cuntay cunto marka dufankii miyay ka baabiin kartaa waa maya xanuunkan waxa ka tirtiri kara oo dili kara oo qura waa biyo saabuun ay wadato weey marka jaadka saabuun baa ku meeraysa kuma meeri kartid naftaada u baq nafta xaaskaaga u baq nafta ubadkaaga u baq nafta maaragtay dalkaaga iyo dadka jecesha u baq maanta ito mas'uuliyadda ugu culus aan kaga bixi karnaa dalka waxa weeye qof kasto naga midi inuu mas'uul noqdo qof kasto naga midi inuu mas'uul noqdo waxaan idin xaqiijinayaa intaas oo goob oo uu soo maray ee la taabtay inaanay dhici karin inaan xabad qurana aanu taaban qof xanuunka qaba xanuunka aad waxa uu taqaanaa kan qufaca lagu sheegayo kan xumada lagu sheegayo kan hindisada lagu sheegayo waxa la soo xaqiijiyay 2-4 iyo 10 casho hore aan xanuunku xataa muuqan